بسم الله وكفى ولبا سين لها كود لولي فايلة صومالي ملكست إيروبت ولا ريال كود لوليو أيال إي وكي شيء إن كهذا لكن أنا كود لولي بيش أنا ما إيمانين إنا وحضوبه إنا كهذا لكليه معني هذا والله بقول دوبي سان لي بس يباهي soomaalida maadaama ay faraxsan tahay kowda luuliyana aan joogno sanad guuradii 61aad maalintii xurriyadda Soomaaliya ay wadaagtay waxaan rabnaa taariikh yar inaan taabanno halganka Soomaaliya calankan aan wadano dad baa dhiig u soo qubay adimahoodii ku waayay aakhira maanta ku maqan marka gumaystuhu wuxuu soo gaaray geeska Afrika sanadkii 1860kii ayuu Suudaan iyo Eritrea uu soo caga dhigtay 1943 halgan ayaa bilowday laba xisbi ayaa dagaalantay aas-aaska gumaystaha la isaga dulqaaday heeriyadiisii waxa ugu horeeyay xisbi la dhigi jiray jamciya oo ku bilowday urur ahaan dhalinyaro is abaabushay oo laga abaabulay Baraawe ilaa iyo Muqdisho waxa haddana la aasaasay urur dhalinyaro ah oo la dhigi jiray SYC oo loo soo gaabiyo Somali National Club kadib ururkii jamciya wuxuu noqday xasbiya ayuu noqday ama xisbiya SYL ayuu noqday kii kalena laba xisbi ayay noqdeen 13 qofood ayaa leega aasaastay waxaana labada xisbi kala hogaaminayay nin la yiraahdo Dr. Cabdullaahi Begedi oo Baraawe ka soo jeeda Tunni Raxaweyn Maylan ah iyo Dr. Cabduqaadir Sheekh Saqaawudiin Sheekh Uways Dheere oo isaguna leega hogaaminayay ragga halganka ku jira waxaa ka mid ahaa oo inta badan aan la xusin Sheekh Xasan Barsane waxaa ka mid ah Nasiib Bundo waxaa ka mid ah Khaliif Huudow Baarbe Hayeesi Dheere Xaaja Dheere oo isugu jira Soomaali May iyo maxaa koonfur iyo waqooyi intaba kadib Talyaaniga iyo Ingiriisku waxay dhiseen dawlad daakhili ah dawladdaas oo uu hogaaminayay mudane Cabdullaahi Ciise oo u dhashay reer Nimcaale Sacad Hawiye waxaa gudoomiye baarlamaan noqday Aadan Cabdullaahi Cusmaan Aadan Cabde oo u dhashay ujeejeen Mudullo Hawiye waxaa gudoomiyaha baarlamaan ee labaad noqday Xaaji Cumar Sheegow oo u dhashay Tunni Raxaweyn Maylan kadib 1956kii waxaan dhisannay dawladdii ugu horeysay ee daakhiliga dawladdaasi markaan dhisannay kadib 4 sano kadib waxaana la siiyay dooq waqooyi iyo koonfur ayaa kuraasta isku darsatay koonfur waxay lahayd 90 xildhibaan ayay lahayd waqooyina waxay lahayd 33 kursi bay lahayd kadib 1961dii doorasho lagu tartamay Soomaaliya xora waxaa doorashada ku guuleystay Aadan Cabdullaahi Cusmaan oo ku magac dheer Aadan Cabde ama Daar ayaa ku guuleystay oo Hiiraan ka soo jeeda waxa uu ka qaaday hal cod uu kaga qaaday Sheekh Xasan Jimcaale nimay dhahan Sheekh Cali Jimcaale nimay dhahan
waxay soo gurguuratada dawladdii 1964 waxay gashay doorasho annagoo dagaal ku jirna tagwa jaale iyo dhulkaasi dagaal Itoobiya Soomaaliya ay galeen waana Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ku dhashay Cusmaan Maxamuud bahdi rooble aan qiyaasayo ma jeerteen daarood ah jarmalka uu yimaaday uu Yurub weydiistay ciidamo 6,000 tababara Itoobiya aan kula dagaalamo maxaa yeelay annaga ciidamo ma lahayn waqtigaas waa loo diiday waa la meermeeriyay Soomaaliya ilaa hadda ciidamo inay dhisatana looma ogola kadib ruushka ayuu ka dagay waxaa la siiyay tababar ciidan Itoobiya la dagaalamay 1967 doorasho dhacday waqtigeeda laga soo horumariyay oo musuqmaasuq dhacay waxaana madaxweyne noqday hadee ma arkaysa macni Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo lagu dilay cigaal ra'iisul wasaare noqday waqooyi ka socda isaaq ah dir ah waxa lagu dilay 15 Oktoobar 1969 ayaa la sacaanood lagu dilay Cabdirashiid Cali Sharmaarke kadib 6 maalmood Maxamed Siyaad Barre ayaa xukunka qabsaday 22 Oktoobar 1969 diina jabhadeeni SNM oo ka soo gashay Lowya Cabde SSDF oo baraagta Boosaaso ka soo gashay USC oo gobolada dhexe ka soo gashay SDM oo ka soo gashay Boqol ilaa Afgooye SBM oo ka soo gashay ilaa Amuuma iyo Kudaa ilaa Afgooye ayaa dalkii la wareegay 19 wixii dhacay kadib isma warsanayno isbaaro waan isboobnay qaxa hadda inta aan ku joogno 19 iyo xoogiisa bilowday marka taariikhda inaan ku dheeraado maan Soomaalida waxaan jecelahay maadaama wadamadan aan hadda dalkan hadda aan joogno Swiiska Box ay soo jabeen ay qofkii qasha habeenkii taajir uu la mid ahaa ay soo mareen Davos tiibishada loogu dhiman jiray taariikhda sida ay qorayso Ilanis iyo Disentis nimanka loo yaqaano Roomaanka oo hadda fartooda ku qoran afarta farood ee Swiiska Konfederaalka waxaan ognahay inay is soo dhiibeen dagaal dheer kadib baahi nalaaya koronto ma jirin nolol fiican ma jirin barafa dadka dhameynay qaboobaha maantana martibaan u nahay marka annagoo wabiyo durduraaya leh Puntland oo batroolka ka buuxo galmudug oo batrool ka buuxo Somaliland oo macnihii aad dareemays awdal iyo markaa martid shidaalka iyo dhagaxaanta qaaliga koonfur oo burwaaqadaas dhex taalo haddii annaga aan is ogolaan weyno may iyo maxaa oo annaga aan isdiidno hadda ogaada 100 milyan baan ugu hareeraysan badna male Etoobiyaan waxaan ugu hareeraysan 40 milyan oo Kenyaan oo badda hadda u fakanaay marka waxaa loo baahan yahay inaan bislaano caruurtan yaryarka ah wadan ay leeyihiin inaan u sameeyno taasna waxay ku imaan kartaa inaan is ogolaano waxaan ku soo gabagabaynayaa walaalayaal idinkoo maadsan karkaar garoowe iyo kontaroolka mudug kusimaheedaasi galguduud iyo kala baydhka hiiraan kamaliitaanka shabeelle iyo kalxanta xamar kuwiya barow iyo kismaayada deeq u taallo kaydadka baay iyo bakooloon ka harin kili asayle kutuwaaray hoosteeda kama maarmaanka gado kowda luuliya waa kolkii ay koorihii gumaysiga kor ay isaga qaadeen koonfurtii iyo waqooyigii kala karantiilnaana kursigoodu mid noqday weeye kowda luuliya kowda luuliyaay ha kalsooni bixin kowda luuliyaay ha kardhayn kowda luuliyaay ha kalbaabin waa laguu kici doonaaye kuraydii 61 tira kow laga gooyey kaarihii gumaysiga kaarabiinka afka ka galshay madaxooda ku deg kowda luuliyaay anigu ka aadan ahaan kuu kibri maaye kowda luuliyaay weligaa kor ahaw
Thank you.